Assalaamu calaykum. Barnaamijkeennan maanta waxaynu ku soo gudbin doonaa 6 caado kuwaasoo noloshaada ugu beddeli doona sida ugu wanaagsan insha Allah. Haddii aad ku dabaqdo noloshaada caadooyinkan, waxaa baadhay oo soo bandhigay qaar badan oo ka mid ah khubarada daraasaysa nolosha aadamaha. Natiijada caadooyinkaasi ka dhalanaysaana waa mid aad u wanaagsan oo ay mahadiyeen dad badan oo isu taagay caadooyinkaasi una horseeda nolol wanaagsan. Haddaba haddii aynu soo qaadanno caadada koowaad, waa kaydin. Ahmiyadda kaydintu ma aha in faqri la sahadinayo oo la diidan yahay qadarta Alle sida ay dad badani aaminsan yihiin, laakiin waa wanaajinta noloshaada dambe iyo ka hortagga ama waajihidda dhibaatooyinka. Sidoo kale waxa aad kaga kaaftoomaysaa baahidii aad dadka wax weydiisan lahayd. Haddii aynu tusaale soo qaadanno, meel aad ka shaqayso ayaa aad ka tagtay ama lagaa eriyey, si aad shaqo cusub aad u heshana waqti ayaa ay u baahan tahay. Marka haddii aanad kayd hore lahayn, dabcan meel bannaan ayaa aad ku soo dhacaysaa. Caadada labaadna waxa ay tahay ahdaaftaada xaddid adigoo u kala qaybinaya kuwa ay muddadoodu dheer tahay iyo kuwa ay muddadoodu gaaban tahay. Suurtagal ma ahan inaad hesho waxa aad doonayso adigoo aan qorin ahdaaftaada isla markaana aanad u samaynin waqti. Waxaa lagama maarmaana inay inoo cad yihiin waxa aynu doonaynaa. Tusaale ku saabsan qodobkan haddaynu soo qaadanno, qur-aanka ayaad rabtaa inaad xifdido, sidaa awgeed waa inaad qortaa muddada ay kugu qaadanayso. Tusaale ahaan, 1 sano ama 2 sano. Dr. Ibraahim Alfiqi buuggiisa Maaraynta Nolosha, marka uu hadafyada labadan u kala qaybinayo, waxa uu sheegayaa 1 sano ilaa 5 sano wixii ka badan inay yihiin hadafyo gaaban, wixii 5 sano ka badanna ay yihiin hadafyo dheer. Caadada saddexaadna waxa ay tahay jadwal hurdo oo nidaamsan. Cilmi baadhis ayaa waxa ay sheegaysaa in jidhkeennu si wanaagsan u shaqeeyo marka la seexdo waqti cayiman, lana soo tooso waqti cayiman maalin walba. Seexo waqti cayiman, tusaale ahaan 10 habeennimo, soona toos waqti cayiman, tusaale ahaan 4 subaxnimo. Sidaasna caado ka dhigo. Waxaa la isku waafaqsan yahay inay hurdo yaraantu ay qofka u horseeddo xanuuno badan. Sidaa awgeed, ku dadaal inaad hesho waqti hurdo oo kugu filan, waana 7 ama 8 saacadood sida ay dhakhaatiirtu sheegaan. Caadada afraadna waxa ay tahay jimicsiga ama ciyaarta jidhka. Mumaarasatu riyaada waa shay ku dareensiinaya wanaag iyo firfircooni, kuuna soo jiidaya awood nafsadeed iyo bashaashnimo. Lamana soo koobi karo faa'iidooyinka caafimaad ee ay leedahay ciyaarta jidhku. Jimicsigu waxa uu siyaadiyaa firfircoonida dhiigga, waxaanu kaa ilaaliyaa xanuunada fadhiga badan ka dhasha sida macaanka. Muhiim maaha inaad jimicsiga aad ku qaadato saacado badan ama aad jiim u aado. Waxaa kaaga filan 30 daqiiqo aad gurigaaga aad ku samayso qaybaha kala duwan ee exercise-ka, amaba aad lugayso beddelkii aad gaadhi raaci lahayd ama aad bas fuuli lahayd. Qaacidada shanaadna waxa ay tahay ha u dib dhigin shaqada maanta berri. Waxaa jirta qaacido la yidhaahdo qaacidatu daqiiqatayn oo macnaheedu yahay dhammaan shaqooyinka aynu qabanno marka aynu bilaabayno waa inaynu tirsannaa 2 daqiiqo, kadibna aynu shaqada si degdega u bilownaa. Haddii aad rabto inaad wax akhrido, amaba aad farriin ka jawaabto, ama aad gurigaaga nadiifisaba, dhammaan wixii shaqaa waad u adeegsan kartaa. Waxaa jirta qaacido tan la mida oo ay leedahay gabadha la yidhaahdo Mel Robbins, kana qortay buuggeeda The 5 Second Rule. Qaacidadanina waxa ay daaran tahay inaad tiriso 1 ilaa 5 inta u dhaxaysa, kadibna aad naftaada ku riixdo inay hawsha qabato. Qaacidada 6aad ee u dambaysaana waxa ay tahay wax akhris. Akhrisku waa dariiqada uu qofka bani'aadamka ay ku kororsado aqoon iyo waayo-aragnimo. Hal buugood akhridaa waa faa'iido weyn, waayo qoraagu waxa uu juhdi iyo dadaal dheer ku bixiyey si uu ku soo helo, ayaad adigu si fudud ku helaysaa. Akhrisku waa deganaansho iyo dareemidda raaxo nafsadeed, waana muhiim inay bulshadeennu noqoto mid wax badan akhrida si aan ula tartanno waxna ula qabno bulshooyinka caalamka. Waxaa jirta xikmad tidhaahda, akhristaha maantu waa hogaamiyaha berri. Midna ogsoono walaalkayow iyo walaashayay, muhiimaddu maaha in kitaab ama buug la akhriyo oo la dhammeeyo, laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in laga faa'iido buuggaas. Laysat ilgaayatu an taqra'a kitaaban, bal ilgaayatu an tastafiida minhu. Sidaa awgeed, u gaar yeel naftaada waqti ay wax ku akhrido, kulana sheekaysato dadkii hore. Waxa ay yidhaahdaan qof kastaa qofka uu ka akhriska badan yahay waa uu ka cimri dheer yahay. Midda ugu dambaysa aan kusoo gabagabaynayaana waxa ay tahay ha rumaysan wax walbood akhrido. Waxaan xasuustaa xikmadan ilaabay ninkii yidhi oo tidhaahdaa waxba ha akhrin haddii aad rumaysanayso wax walbood akhrido.
taasina waxay inoo muujinaysaa oo ayna tusinaysaa inaynu mar walba aynu wax akhrinayno aynu ku akhrino maskax soo jeeda oo wax kala shaandhaynaysa oo aynaan wax walba duuduubka ku liqin. Wassalaamu calaykum.